Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada sheekadeena. Magacaygu waa Axmed. 2 sano kahor waxaan u baxay waxbarashada dalka dibkiisa ah. Markii aan tagay magaalada waxa aan ka kiraystay guri, waxaana u hormariyay 6 bilood lacagtiisa. Markii aan lacagta siiyey ayaa waxa uu igu dhahay, waxaan ag deganahay guriga kugu dhegaan, wax haddaad ii baahato waad ii imaan kartaa. Kadib waxa aan guda galay inaan waxbarashadeedii wato. Marmar ninka guriga iskale wuxuu iigu wici jiray qadada si aan ula qadeeyo. Xaaladdeedana aad ayay u deganeed, waxayna ahaayeen qoys ka kooban asaga, xaaskiisa iyo gabadhiisa. Xaaskiisa ayaa markii aan qadiinay waxa ay igu dhahday, maalin walba haddaad awooddo noo imow si aad noola qadayso. Anigana waxa aan ku dhahay waad mahadsantihiin. Kadib markii aan guriga tagay ayaan seexday. Markii aan seexday waxaan arkay riyo aad u xun. Waxay ahayd haweeney ii imaaday anigoo cunteynaya. Kadib waxa ay igu dhahday ikaraame. Waxaan u dhaweeyay saxankii cuntadii iigu jirtay, balse ayada way iska diiday. Haddana waxa iigu celisay ereyga ah ikaraame. Waxaan siiyey lacag aan kasoo bixiyay jeebkayga, way diiday. Kadib waxaan ku weydiiyey waxa ay rabto, balse waxa ay dhahday ii tilmaamtay modulka. Riyadina saas ayay ku dhamaatay. Waxaan soo kacay anigoo aad u naxsan. Kadib waxaan isu diyaariyay jaamacadda. Markii aan aaday jaamacadda, inta lagu jiray casharada waxaan ka fikirayay riyadii aan ku riyooday xalay. Kadib waxaan ka soo baxay jaamacadda, weli waan ka fikirayay riyadeydii. Markii aan guriga imaaday ayaan qabaystay, waana seexday. Isla sida riyadii ayaan ku riyooday, waxaana arkay haweeneydii. Waxaana weydiiyey adigu yaa tahay? Waxay iigu warcelisay ikaraame. Markaas ayaan ku dhahay sidee kuu karaameeyaa? Ayada oo murugaysan ayay albaabka ka baxday. Waan soo daba kacay. Kadib waxa ay soo socotay guriga daarkiisa, waxayna imaaday modulka agtiisa. Waxayna igu dhahday ikaraame. Modulkii ayayna gacanta igu fiiqday. Markii aan soo kacay anigoo naxsan, waxaan ka fikirayay riyadii iyo sida igu soo noqnoqonayso. Kadib waxaan ogaaday inay haweeneydaas u baahan tahay caawimaadeyda. Waxaana ka fikirayay sida aan u caawin lahaa. Banaanka ayaan u soo baxay si aan jawi u qaato. Markii aan waddada marayay waxaan ka fikirayay riyadeeda. Waxaan isweydiinayay sida aan u caawin karo haweeneydii. Anigoo soo socda waddada ayaa waxaan arkay haweeneydii aan riyada ku arkayay. Kadib waxa aan weydiiyey inay tahay qof bini'aadan ah iyo inay tahay jinni. Markii aan fiiriyay ayaa waxaan arkay ayadoo dul sabeynaysa dhulka, lugaheedana ma ayna yaalin dhulka. Kadib aniga baqdin aad ayay qabatay. Waxayna igu dhahday ikaraame. Waxayna ii tilmaamtay modulkii. Markii aan weydiiyey kadib sababta ay ugu xiran tahay modulkaas, ma ay ii jawaabin. Halkaas ayayna igaga tagtay. Aad ayaan u naxsanaa. Waxaana u soo cararay dhanka gurigayga. Waxaana isdhahayay hadday haweeneydan rabtay inay dhibaatayso kol hore ayay sameyn lahayd, balse waxay igaga baahan tahay caawinaadeeda. Kadib waxa aan soo gaaray guriga. Markii aan guriga imaaday ayaan waxaan fiiriyay geesihiisa. Kadib waxaan arkay modulkii. Markii aan modulka soo gaaray ayaan waxaan isku dayay in aan furo, balse waan awoodi waayay. Laakiin waxaan ka maqlay cod gadaasheeda. Waxa uu ahaa ninka guriga iskale. Waxa uu weydiiyey waxaan ka sameynaa modulka dushiisa. Waxaana u sheegay markii aan daaqadda taagnaa inaan cod ka maqlay. Waxa uuna igu dhahay modulkan waa modul qadiim ah. Waxaa laga yaabaa inay bahalo ku jiraan. Waxaadna ogaataa guriga khalqol ayaan kaa kireeyay. Modulka kaama kiraysan ayaa kugu arkay modulka agtiisa. Asagoo xanaaqsan ayuu saas ugu dhahay. Anigana waan ka soo tagay. Waana ka raali geliyay wixii aan sameeyay. Waxa uuna i weydiiyey xaalkayga. Waxa uuna dhahay baryahan noomaada imaanin, ma nabad qabtaa? Waxaan u sheegay inaan mashquulsanaa. Kadib qoful kale ayuu guriga modulka ku xiray uuna isaga tagay. Aniga aad ayaan uga shakiyay waxa modulkan ku duugan. Kadib waxaan go'aan ku gaaray markii uu guriga ka baxay inaan modulka furo. Habeenkii markii aan seexday ayaan waxaan arkay riyadii oo kale. Haweeneydii ayaana igu dhahday ikaraame. Subaxdii markaan soo kacay aad ayaan u murugaysnaa. Waxaana ii yaalay imtixaanka, balse waxaan ka fikirayay haweeneydaas. Markii la gaaray subaxii, waxaan arkay deriskayga oo boortadiisa xiranaya. Markii aan u imaaday ayaan weydiiyey halka uu u socdo. Waxa uu noogu dhahay waxaan u socdaa beer ku taalla magaalada ka baxsan oon aniga leeyahay. Waxa uuna weydiiyey inaan soo raaci karo, balse waxaan u sheegay inaan leeyahay imtixaan. Kadib waxa uu dhahay dhib ma laha, waxaan imaan doonaa 3 maalin kadib. Gurigana adiga ayaa mas'uuliyadiisa iska leh oo ilaalin doona. Waan u mahadceliyey. Kadib waan ka soo tagay. Markii aan soo gaaray jaamacadda ayaa waxaan galay imtixaankayga si dhaqso ah. Kadib waan soo laabtay. Inta aan soo socday ayaan waxaan isweydiinayay sida aan ku furi lahaa meeshaas iyo waxa aan kala kulmi doono.
Markii aan guriga soo gaaray ayaa waxaan arkay ninka deriskayga oo weli taagan guriga agtiisa, waxa ayna suuqa ka soo gadanayeen alaabo kaafin karta 3daas maalin ee ay maqan yihiin. Waxaana dhahay waa inaan sugaa inta ay ka baxayaan si uuna igaga shakin ninka guriga iska leh. Habeenkii oo dhan waxaan balkoonkayga ka fiirinayay waqtiga ay bixi doonaan, waana sugayay aad ayaan u daahsaday. Kadib markii la gaaray habeenkii saq dhexe ayay soo baxeen, waxa ayna fuuleen baabuurkoodii. Kadib aniga ayaa soo baxay, waxaana soo qaatay buruskayga si aan u jabiyo mudulka. Markii aan jabiyay albaabka mudulka ayaan gudaha u galay mudulka. Waxa uu ahaa mugdi aad u badan. Markii aan soo galay ayaa waxaa ii soo urtay ur aad u xun. Waxaan shitay moobilka tooshkiisa si aan u fiiriyo guriga. Waxaa saarneed carcare aad u badan, waxaana ogaaday inuu muddo la gelin. Kadib markii aan fiiriyay dhulka ayaa waxaan arkay carro ay dul sabeynayaan dixri aad u badan. Markii aan lugteyda ku fiiriyay ayaa waxaa ii soo baxday gacan uu qof leeyahay. Aad ayaan uga naxay, waxaana u soo cararay dhanka bannaanka anigoo khayrinayo aadna u baqaaya. Markii aan soo gaaray bannaanka ayaa waxaan wacay booliska, waxaana u sheegay meydka dhulka yaallo. Markii ay imaadeen booliska ayaa waxay xirteen eriyada dhan, waxa ayna iga qoreen oobiga. Kadib waxa ay ugu amreen inaan magaalada ka bixi karin inta kiiskan ka dhammaanayo. Waxa ay imaaday maamadii, wayna ii mahadcelisay. Kadib gaashaanle ayaa i wareystay, wax walbana waan u sheegay. Waxa uuna i weydiiyey goorta ay imaan doonaan reerka guriga iska leh. Waxaana ku dhahay 3 maalin kadib. Wuxuuna igu dhahay inta laga gaarayo guriga kama bixi kartid. Kadib waxaa imaaday reerkii guriga lahaa. Markii ay soo gaareen gurigoodii ayaa waxaa ka hor imaaday booliska. Si xanaaq ku jirta ayaa wuxuu igu dhahay gurigayga ayaan ku soo dejiyay, waxaana kugu amray inaan mudulka furin, maxaad u furtay? Booliska ayaa kaxeeyay, waxayna weydiiyeen meydka waxa uu yahay. Kadib waxa uu ku dhahay qofka meydka ah waa sodohdii aniga. Waxay ku xanuunsanayd gurigayga, ilmaheeda ma ay soo booqanin ilaa ay ka dhimato. Markii ay dhimatay ayaa xaaskayga u sheegay in loo sheegin walaalaheed inay dhimatay, waayo waxay imaanayaan si ay u qaataan guriga dhaxalka ah. Waxaana u sheegay in aan ku qarino mudulka, walaalaheedna ma ogaan doonaan, waxayna u maleynayaan inay nooshahay. Waa ay ugu waafaqday arrinkaas, balse bilo kadib waxaa la joojiyay mushaarkeedii, waxaana lagu xujeeyay in ay ayada imaado si loo siiyo mushaarka. Sida lacag la'aan darteed ayaan Axmed uga kireeyay guriga ilaa laga soo gaaray maanta oo sirteeda ka shaqmatay. Ninka guriga lahaa waa la xiray, anigana waxaan kireystay guri kale, waana ka nastay maamadii ii imaan jirtay. Waxaana xalliyay xujadii ku xidhneyd oo ahayd karaameynta meydka in la duugo. Dhammaad.